taageerada madaxweyne xukuumadda Muuse Bixi Cabdi ayaa sii yaraanaysa Somaliland taas oo loo sababaynayo kala xiriir furashaha xukuumadda iyo shacabka Somaliland. madaxweynaha Somaliland ayaa markii uu talada dalka la wareegay 3 sanadood oo gow ah horteed waxa uu dhistay xukuumadda shacabka Somaliland aanay soo dhaweynin isla markaasina u badan junior ama kuwa aan waaye aragnimo lahayn isla markaasina caruur u badan. madaxweynaha Somaliland oo sheegay inaan cidna lagala hadal wasiiradiisaasi ayaa waxa ay taasi ku beenowday in cid kasta lagala hadlay isla markaasina madaxweynuhu uu dhistay dawlad aan cidna gelin cidna aanay ka bixin isla markaasina taasi ay noqotay container xukuumad meel kaga xireysan shacabkeedii doortay. kala xiriir furashaasi waxa uu ka bilaabmay in saxaafadda Somaliland markiiba ka xiriir furato isla markaasina meelaha kale muraadkeeda ay u doonato. saxaafadda Somaliland wariyaasheeda ayaa si habaqlaa uga kala degay meelaha Djibouti, Addis Ababa iyo magaalada Muqdisho iyadoo oo xadhig iyo tacaddi fara badan xukuumaddu kula kacday saxaafadda. dhinaca kalena waxa ay sii maraysaa in dhinaca abwaanada iyo fanaaniintuna ay ka xiriir furtaan isla markaasina ay gabayo lagu xidho iyo heeso ay ka qaadaan magaalada Hargeysa gudaheeda. waxa ugu dambeeyay salaadiinta magaca kule iyo mugga Somaliland ee dhismaheedii iyo halgankeediiba ka soo qayb qaatay in ay dhawaan iyaguna sheegeen in ay ka xiriir furtaan xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi. shacabka Somaliland iyo xukuumadda Muuse Bixi ayaa kala lushay muddo 3 sanadood ah isla markaasina madaxweynuhu waxa uu qaadi kari waayay in uu wax isku shaandhayna ama wax siyaasadda bedelo iyadoo oo aan dagaalo dalka ka dhacay iyo siyaasado ismaanguursan dhammaantood midna aanay sababin in uu ka ciyaarsiiyo masraxa siyaasadda. gebi ahaanba albaabka siyaasadda Somaliland ayaa xidhmay isla markaasina waxa la waayay wax gala madaxtooyada Somaliland oo xidhiidh la leh xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi. taasina waxay sii sababaysaa in kala furasho ay sii korodho. taasina waxay sababi doontaa in buudhiga iyo shirku ay kala furmaan. haddii taasi dhacdana waxa dal dheer ka dhici doona qarannimadii Somaliland ee tacabka weyn lagu galay isaguna waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu magaca liitay ee soo maray Somaliland. si kastoo ay tahay ba madaxweynaha Somaliland waxa lagu tilmaamaa ninka xidhay albaabadii siyaasadda Somaliland. wax harakaad siyaasadeed ayaan haba yaraatay ka socon madaxtooyada Somaliland marka laga tago 30 inan oo yaryar oo wasiiro u ah. taasina waxay sababtay in siyaasadda saameynteedii ay albaabada goosato. madaxweynaha Somaliland ayaan cidiba kala talin dhinacyada dhalinyarada, caafimaadka, dhaqaalaha, militariga, siyaasadda, salaadiinta iyo haweenka midnaba. xaalkiisuna waxa uu noqday madaxweynaha hadaan noqday maana cid u baahan. aadan cabdi ciile radio halgan Hargeysa.